وما صدق سؤال هذا مثلا عن رأينا نسبة عن وجوابه كل حس على فاشة وحيد قايل ودورته ما أنت ماشى لجو واحد يوطن أو نقاريه السا أما بشيء سأمني سوق سعودي أنتو برايم مستكعها لكن لجو واحد قرطة ننجو سعودي ترى يهاي إنه ودورته واي محل الحوال في عنوان سن نظيف الحديث هو وتجي haddana wixii halaabay aad ula socday oo wadanka nin joogay oo u kulaalay waxa dhacay waxa sixitaanka u baahan waa wax waqtiyeysan sida muxuu ahaa deen cabsiga oo kale dadkii ula shaqeeyay iyo cidoo la shaqeeyay kulli muxuu ahaa dhinaca internationalska weli recordkiisii ayaa hor yaalo marka waa muhiim aad muhiim u tahay haddii aan xildhibaanadu ay danaynayaan in deen cafisku oo daqiiqadiba uusan daliilkiisii lagu soo celiyo horta koow in loo doorto wey dhinaca amniga waddankan habacsanaantiisa wax badan ayuu ka ogyahay wax badan ayuu ka soo qabtay ciidanka waa ciidankiisii hadda waxaad moodaa oo in ciidanka tashwiish badan la geliyey waa qofka keliya oo meeshaas ka saari karo muxuu ahaa arrimahaas dhinaca dhaqaalaha in waddanku dhaqaalihiisu kobco wuxuu u leeyahay heybad ilaahay siiyey saan aaminsanahay aanan ku aqaano dhinaca dhaqaalaha haddii xildhibaanadu ay danaynayaan daqiiqadana in la kabsado oo aan berrita mushaarkooda la waayin oo ciidanka mushaarkooda la waayin waxaa xildhibaanada ku waajiba oo aan ku doofinayo inay astaantaasu leeyahay dhaqaalaha kobciye in lagu doorto waxaa intaas dheer siyaasaddiisa arrimaha dibadda iyo ka somaliland aniga aadan ula socdaa xogaal hoosena waa u ahay fikirka uu ka qabo muxuu ahaa midnimada waddanka khaasatan sidii somaliland muxuu ahaa dib loogu soo celin lahaa unionkii iyo midnimadii soomaaliyeed fikirkiisa aad u fiican yahay in lagu doorto ayaan ku soo jeedin lahaa maxaa yeelay waa nin u diyaarsan inuu arrintaas oo daqiiqadiba oo ka miro dhaliyo dabeecaddiisa wanaagsan isku wad kale wuxuu awoodi doonaa haddii madaxweyne loo doorto oo in lagu doorto ay tahay isku wadka federalismka waddanka saad ka warqabtid hal maamul goboleed oo cadaawada kala dhexaysa ma jirin dhammaantood waa isku wadiye dhammaantood waa ka wada waa la shaqaynayo haddana maanta aan joognayna kulligood macaamil fiican iyo xiriir fiican u leeyahay marka waxaan haddaan soo koobo in lagu doorto ay tahay dhaqaalaha waddanka deen cafiska amniga midnimada soomaaliya khaasatan somaliland iyo federalismka inuu kobco oo shaqeeyo ayuu awood u leeyahay intaas iyo in ka badan in lagu doorto ay tahay waxaan soo jeedinayaa in xildhibaanadu ay aad iyo aad u taxadiraan qofka ay soomaaliya maanta u doorayaan dhowrka sano soo socda